waxaan ahay aabba dhiman maanta idaacadda goobjoog waxaan u soo booqday oona nasiib ah u yeeshtay in aan maanta dhibka aniga haysto aan uga hadlo muddo badan ayaan raadinaa qof jaaniskan is siiyo marka ugu horeysa aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin wanaaggan iyo fursaddan qaaliga ay siiyeen mideeda labaad walaalayaal ummadda Soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qofka kulli waxaan ahay aabba dhibaataysan oo magaciisa la yiraahdo Saalax Sani Yuusuf Cali ku nool magaalada Muqdisho dib oo aad iyo aad muddo 9 sano aan ku hurdi waay aan ka harsi waay ay haysto waxaan ahay aabba dhiban muwaadin Soomaaliyeed taariikh xun oo waxa igu dhacday ama i haysato qof kasta oo muslim hadii loo sheego dabcan jid oo asiga gilgilayso Allahumma musta'an marka walaaliya aniga oo hadda ka hor xabsiga Sacuudiga ku jiro talxiil taariikhda markii ay ahayd 2010kii ayaa waxa igu dhacday wiil yar oo 8 bilood jiro iyo gabar yar oo 1 sano bar jirto ayaa tarxiilka la soo galay markii la qabtay xabsiga Sacuudiga la ii galiyay ayaa waxa la igu yiri meeshan xabsiga sida xaqiiqadan waa run xabsiga waa meel weyn oo nadaafadiisa aysan wanaagsaneyn oo uraysa waaye dabcan waxa la igu yiri ilmahan yar yar ka ah waa la igu sawir aniga iyo labadii cunug wiilkay iyo gabadhiisa aan u haayo ayaa la igu sawiray waxa la igu yiri ilmaha yar yar xanaanada meeshan waa xabsi weyn ilmaha yarka lagu ma hayn karo dabcan aniga markii waxaan ahay nin maxbuus ah Allah wixii lay amro waxaan ku qasbanay inaan qaato waayahan ilmihii wiilkii oo 8 bilood jiray iyo gabadhii sanad iyo barka jirtay waa la iga wareejiyay meel waxa jirta xanaano caruurta yarka lagu hayo marka aabaha oo wado ilmaha because aniga gabadha ilmaha iyo dhashay daruuf jirta aawadeed ayaa Yemen ayaa isla joognay ilmihii ana waxa ku wadhi ku ballan inaan Soomaali aagi cala daruufta nolosha meesha ayaan cajibi weysay in ilmahan Soomaali aan geeyno kadib arrizq ala Allah oo ilaahay rizq oo duurka ilaahay u raadsano ilmihii markii laga reebtay si muddo marka meesha aan ku jiray waxa dhacday maalmaha kamid markii la gaaray xilligii diyaaradda ee bixisay ayaa magacyada xabsiga ku jiro qof ayaa loo yeerinaya waxa la yiri Saalax Sani Yuusuf Cali aabay gacantan taagay waxa la dhiibay warqadii aan ku baxay ayaa la dhiibay bas waxa dhacday warqadii waxa arkay labadii cunug iyo gabadheedii wiilkii sawirkeeda oo arkay wiilkii oo sawirka laga jeexay bas waxaan dhahay walaalayaal maxaa dhacay wiilkaygi aabay dabcan waa taqaanin maxbuus hadalka lagu yiraahdo hadaan qaadanin cid aad baahanta wax ka qaadan kartid ma jirto على حال عنقي ويسكودي دي بس ده عسكري أي هاين هبلو ويجود قصله هبلو عنقي سابر هبلو عنقي سابي طبعا عبار أي ده المكي ماذن إلى وحق قدر وحنا مرك أنا هلب كي أما عنقي أو نول إيجار من أن كهينين هل كان إن أنكبحه عنقي ما أي هاد بس وحيقول ده مرك هذا أي كافرنتا واحد دي بحيث وأنا بحضا هذيك أنا حبسي أسكن قطع حبسي أيام كلها بتنبحها يعني هاي مدلة وطن عش يا حبسي وكلها أوين هاي وبقف بين آذنا ويرحمه أنوي بالقدرة الله لبعطن عش مركز حبسي وكل يعني حساب تمي وحن راي ما أنت عنق جادان أودك حق بدنا إلهي هنا يا هاي سطو بس هذا إله أقلا يوم الأيام مالمها كمية عنق بإذن الله كريم وهلس يعني يدك استي عنقت أيا شون إمتى يقدعي وحنا مرك عنقت أيا لجاها يستا يسن لعن أغلى غف صالح وين أغلى هذيك ستا عنقتان هذا قطر إيجا جسيسون يس عنقتان كا دمن ماشى أنا قول بهارسن أن رالي كهين أيا قابت الديارد ولا جراع أيا وحنا نقول سوق هذا بس كمركز نقول سوق هذا عسكري أي بس كلا صعد أو قف مركزات ديارد الرعاة إلا ديارد قف كسماء ديارد يريد ديارد وحتى ين عسكري كله أيجا سوركي أيجا ويجهان إن السد حذين أي سورك هون قلق هذا سورك ويل كي جواك جهان أيجا وحي كان أنيجا يجبت وكل أي سور كانن لكن أي وحي اللي بين قدر الله يا صعد وحي اللي بين سد حذين مجا إلا المشان سلم صالح سني سلمان صالح سني صالح سني سد حق فبرتهم كقرن أي وحي اللي بين مركا مجا ماشان كقرن أي اللي بين سورك ويل مركا جهان أي عسكري ديارد أكتجنا وحكويري ورنيه عسكري كل أيوة وحكوي ورنيه ماشان سد مجا يا كقرن لا بقف أيانا صعدته ما يقف كسد سلمان صالح سني آبا لقيري
askarigii ayaa la qabtay garabkii oo diyaarad ag taagna ayaa gacanta la qabtay waxaa gooniyaa loola baxay allahu aclam waxa ay dhaheenna wax ayaga wax isku sheegeen okay ayay dhaheen aniga si ayaa diyaaraddii lagu saaray xaqiiqadii waxaa dhacday diyaaradda markii ay sii kacaysay ilaa maa hawada ay ka gasho waan fiirinayay meesha cunugeyga leegaga reebtay waan fiirinayay waxaa laakiin niyaddeeda ay ku qorneed wamal xayaati dunya ilaa mataaca alquruur allahay adduunka inta lagu noolaana wax yar ah haddii aan noolahay inaan cunugey oo xalaal yahay dhiiggay hilibkii waxaa ogaa maalmaha ka mid ah inuu ilaahay ii soo yeerin doono waan fiirinayay ilaa hoos diyaaradda ee ka kacdo waan fiirinayay bilqudratillah waddankeyga ee imaad isla xilligaasna awood waa yeela waayey qof wax ii qabato because aabbo waxaan ahay aad xaqiiqada daruufaysan yemanaan ka imaaday wax shil oo isku furtay markaa muqdisho aan kasoo degaayay $1 jeebkeyga kuma aysan jirin waalidiinteed ayaa u imaaday xaqiiqadii waalidkeyga aabay waa oday 80 jir ah hooyadeen waa waayeel aaba wiilkii markay dhan aab neefsadeed ayaa iqaabay waxaan dhahay aaba wiilkii wuu iga geeriyooday because haddaan dhaho aaba wiilkii iyo hooyo aan u sheego xaqiiqada waalidka duruufaysan ay ahaayeen ma aysan awoodin maanta inay raadiyaan way walbahaari lahaayeen way murugoo lahaayeen balse waxaa isdhaha saalax adaa nin rag ah ninka raggan adduunyada wuxuu u joogaa rafaad iyo raaxa intaba u joogaa waxaan dhahay marka adiga le ana nafsadayda ilaa xilligaas 9 sanadood ana nafsadayda iqaabay aniga nafsadayda ku qarsanay waxaa dhacday inaan iska laabto aan laabto waxaan u laabtay Yemen xamar xoogaa markaas ma sha Allah tabaaraka Allah maanta dawladda Soomaaliyeed waxaa leenahay xaqiiqada lagu faani karo ayaa leenahay ma aysan jirin xaaladda maanta muqdisho markaas xilligaas waxay ahayd nusna dabcan waa iska warqabnaa inaan dabcan waa qof kasta Soomaali uu ogyahay muqdisho 2010 waxay ahayd dabcan ayada kala bar xoogaa problemkeeda aad u badnaa waan laabtay waxaan ku laabtay Yemen anigoo markaas salaada tukado alla bari jiray dhihi jiray cuniga hadduu hilibkaada xalaal yahay maalin buu Ilaahay ku soo yirin doonaa meesheeda ay iska joogay alxamdulillah gabadhi xaaska ilmaha yarash waxay u dhahay saalaxo wiilkeeni mee waxaan dhahay wiilka qadar Allah ayaa nagu dhacday qadarta Alla qof kasta way ku dhacaysaa annaga waxaan nahay bini aadan daciif aan nahay amar Allah ayaa nagu dhacay ubadkaas shal Ilaahay ayaa wiilkaasna siiyey insha Allah taala bedelkiisna Ilaahay noo gargaarayo ha isdhiibina ismurjin niyadda qabowj ayaan gabadha xaaskeyga oo dhacay inay taariikhdaas igu dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin xilligaas kadib 5 caruur Ilaahay si ma sha Allah tabaarakallah iyo gabadhii hore Soomaaliya oo kale 6 caruur marka walaalayaal waxaan ahay aabba dhibaataysan oon hal habeen 9 sano oo dhalato aan hal habeen hurdo raacal aan hurdin maanta ma awoodo inaan baxo diyaarad aan raxdaa maanta awood aan lahaa inaan baxo diyaarad aan raaciyo Sacuudi tagi lahay ayaan dhihi lahay safaarad in loo kasta ayaan gali lahay waxaan dhihi lahay maanta cunugii ay iga maqan laakiin ma awoodo maanta subaxdii ayaan soo kacay ilaa 3 saac 4 saac mooto laba lugaaley ah dabcan waa ogtiin nolosha dabcan qofka doosan waxba haysan rizq xalaal si kasta oo kugu soo galo inaad ku raadisaa mooto laba lugaaley ayaan wataa ilmahayga subaxdii ilaa 4 saac $4 $5 waxa hel ayaa ilmahayga uga raadsadaa waa imaada waxaan wareegaa xafiis kasta waan garaacay alxamdulillah maanta Ilaahay wuxuu ii saalay idaacada goob joog maanta madaxda kor ahaato way jirtaa maanta idaacado badan oo Muqdisho aan tagay oo isbuuc idaacado badan oo Muqdisho aan tagay way jiraan xaqiiqadii aan qof bini aadan aan dulmin waxa Ilaahay igu og yahay qof kasta marka uu wuxuu igu jawaabay ilaan aan daruuf ayaa iga muuqato balse qofka dooli bisan yahay gaari oo wato dabcan waa la soo dhaweynaa waa ognahay Soomaaliya kalimahan adduunka idil saas ka jirtaa balse qofka daruufaysan dabcan waa ogtihiin waxa wax ku taray nin oo dhiig Soomaaliyeed amba oo ku jiro dhiig Soomaali ama damiir walaatinimo ama damiir muslimnimo oo ku jiro maanta xaaladda ku suganahay ayaa og marka hore ma hadda Allah ay u sugtay markii labaadna idaacada goob joog Ilaahay waxaan ka baryaa inuu dib iyo cadow ka haayo biidnillaahi kariim sharn Ilaahay ma tusaayo marka walaalayaal cunugeyga waa ka sawirkiisa waxaa la yiraahdaa Salmaan Saalax Sani waa wiil Soomaaliya nasiib darradii adduunka qof bini aadan ku dhacdo tii ugu xumayd ayaa haysato 8 bilood asigoo jiro ayaa la reebtay 4 darbi xabsiga Sacuudi Arabiya tarxiilka ayaa awood la igaga reebtay 8 bilood 4 darbi dhaxdiisa la geliyay ayaa teer iyo maanta 9 years 9 sano ayuu cunugeyga waxbarasho la'aan mustaqbal la'aan dib la'aan ayaa haysato please haddii uu jiro qof muslim ah amba qof dhiig Soomaaliyeed leh marka ugu horeysa waxaan halkaan la hadlayaa aabbaha Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ما شاء الله مدالها مسكين ومعينها ميل كست جوجان رئيس الوزراء حسن علي خير ولها وزير ذا رئيس الوزراء انت الصومالي او ما انت ديك صوماليات او كجر عنقه وعنقيني ما هن انيق او كلي ان ابا ان وهي
qof oo anfacaya allah iyo rasuulkiisa ayaa og waa nin Soomaaliya waa maanta nin aan awood u lahayn faciisa waxay baranooyiin faciisa maanta heerka ay marayaan aan awood u lahayn waay ma yaqaan aabihii hooyadii ma yaqaano wadanka uu dhashtay ma yaqaano gacanta wuxuu ugu jiraa awood ilaahay oo dabcan ilaahay aan ahayn awood bini aadan ayuu ku jiraa walaalayaal haddii lay dadaalo Soomaali ama qof muslim meel kasta adduunka aad ka joogtaan waxa idinka baryayaa in aad igu caawisaan sida wiilkayga habeen murdo hooyadiin ilaa hadda nolol igeer ay u dhaxaysaa 2 miir ay iga tahay marna ayadii ayaan soo fiiriyaa hooyada waxay cuna leedahay ilmihayga ayaa u raadiyaa marne cunugayga ayaan raadiyaa anoo tabar daran oo maanta awoodin in aan xataa gaari am wax inaan raaco aan meel ugu tag ma awoodo saacadaas ay la hadlaayo mootabel waali ayaa wataa ma haysta xataa ayada xataa shidaalka wiil saaxiibkii hal door bar hadda aan ka dansaday marka please ma ahan meesha wax u soo fariistay inaad dabcan qof gurraas aaba dhibaataysan ayaana hilibkii ayaa iga maqan waxa idinka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed aad tihiin in aad maanta iga seexanina maanta qof waliba wiilkiisa og yahay ducaa hal habeen ka maqay ama oo ka soo dhaco dhibaatada oo mara waa wada ognahay marka halka ku soo gabagabeynaya aaba dhibaataysan ayaan hay yaan la iga seexanin nin kasto oo ark muuqaalkan daawado ama Facebook ka akhriyo please ha share gareeyo waa walaalkiina waxa maqan cunug saqiir ah maanta wax barashadiisii 9 sanadood 4 darbi dhaxdiisa qof bini aadan oo muslim arxama aan lahayn daruuf ayaa ka muuqato funaanadaas u jeedin maanta asiga eeyaha iyo mukalaalaha oo xabsiga raashin ku cuno hal meel ay isla seexdaan maanta cunug nin ogolaanaya ma jirto muslim gaal ahaado wiilkiisa oo dhibaataas nool waxa idinka codsanayaa please dad muslimiin aad tihiin cunugayga in laga seexanin sawirka ninka arko inuu share gareeyo please ala caawiyo aaba dhibaataysan ayaa ahay مهمة عن دقال إن لا يقول عاوي مهمة لكن هي مهم إن لا يسود مهم إنك آباء من تكونوا إن لا يسوى حريريو تلفن كي وأركضون إذا عاد في جوك أي فيسبوك إذا صغرت تو وإذا بريا ونجي خلي الراديو يلا يسحن مستقبل كيسوال مي لكن هذا واقع جاري كراه دي لا يسبت بادية ونجي قف مسلم أو عاوي ما وينايو لكن هلا صبح أفرت التربية دحيلا